السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي جعل جنالكي كحرنات بعد السلام يا ولاشين ساعدين ودي لازم نقدون أكسن ماني ونأكسن وقت ربودين تو ونأكسن دمانتي واحد لا جمعة مبارك ملك استؤاد جوكتين هذا جمعة قوتا يدي سكو أهم بجمعة مبارك إن شاء الله دي aad maxaa lihi jira ku cusubtahay channelkeena waxaan ku leeyahay soo dhawow videoga noo leegray subscribe gambalelka furdaawadahena ku waad u noqotid hadaad hore noola joogtana wali ag joogaaga waa jecelnahay waanan rabnaa waan ku faraxsanahay aad baan u mahadsantahay waxaan idin leeyahay soo dhawaada dhammaantiina maanta cadii maxay idin wadaa maanta video qasaha wada oo ugu dalgal gabdho walaalahayga gabadha baaya maalinta waxay soo weydiisay in wajigeeda nabra zaid leeyahay ee kareem walbana ka quusatay aysan isticmaalin oo hadda kareem aysan isticmaalin kareem kasto ee marsatana oo nabra ka baabi'inaynin waxana uu ka baabi'inaynin soo sidaa daraadeed maanta hadii aad ka mid tahay dadka nabraha ay dhibeen oo kareemada waxba u tari waayeen waxa way soo dhawow hadaa hore u isticmaashay labadan kareemne waxa ku leeyahay commentiga insha Allah u faa'iiday walaalahaaga saidin kaga barto waxa way comment section ka isku soo gashiin aad ba ugu farxaya because shaqooyin badan ani aan qaban lahaay ba iga qabataan waan idinkaga mahadcelinahay taas aad baan u mahadsantihiin kareemadan horta arkaysiin labadan kareembo ka nabraha dhanka nabraha aad ugu fiican yihiin waa laba kareem oo aan kala liidanin sida daraadeedna whitening qurux badan ku siinaayo waxa ku dhahay ma sha Allah tabarakallah horta anti ma ka sifacan u taqaaniin Aniza Gold sidoo kale to Aniza Gold waa kareemada oo nabraha loo isticmaali ku jirta oo nabraha aad wajigaaga waxa ku dhahay soft kaaga dhigayo ma sha Allah kareemka Aniza Gold hada ku hormaro waxyaalaha laga sameeyay iyo meesha laga keenay iyo wuxuu qabto iyo waxa ku dhahay waxiisa dhan dadka iska loogu talagalay hada idin kaga dhaco kareemkan waxa waaye kareemada wuxuu ka mid yahay from Pakistan laga keeno soo sidaa daraadeed waxa jeclaaday in maanta asiga iyo kareemkan ay isku isticmaashin waa hadii uu waji korkaaga oo wajigaaga uu nabra badan leeyahay hadii aad nabra badan leedahay kareemku ku anfacaya hadaad nabra lahayn waxa waaye soo dhaw aydan waji nadiif aragtid wajigaaga raashis leeyahay kareemka zaid ku anfacaya waan ka soo mahad celin doontaa insha Allah hadii aad ka hormar Aniza Gold waxa laga keenaa Pakistan waa kareemada Pakistan laga keeno kamid yahay ingredientkiisa ama waxyaalaha laga sameeyay waxa waaye avocado iyo dacar apple waaye infaant kareemada apple-ka ku jira waxa ku soo haray dadka isticmaali karo dadka loogu talagalay all skin type waaye hada asaliita waa marsan kartaa hada dry ta waa marsan kartaa oo wajigaaga khaleel yahay hada wajigaaga oo waxa waaye normal yahay oo iska caadi ah saliidna ahayn qaleel ahayn waa isticmaali kartaa okay intaas marka isticmaashid waxa ku soo haray waqtiga loogu talagalay in la marsado waa night cream waaye kareemkan oo habeenkii isticmaalaysa waxyaalaha ka baabi'inaa waxa lagu dhaw wajigaagii nabriyo ka baabi'inaa sports ko ka baabi'inaa oo dulduleelka wuxuu ka baabi'inaa rashes ko ka baabi'inaa waxyaalo badan oo inaba caadi ahayn wajigu ka baabi'inaa marka anti markis oo loogu talagalay nabrihi aad ku darsatidna maxaa ka sugaysaa wajigaaga inuu clean ku noqdo ونظيف وwaxa ku dhahdana whitening laga sheekay karin labadooda whitening leeyihiin anti markisna waxay leedahay whitening maxaa la jira Aniza Gold waxay leedahay whitening Aniza Gold Aniza naftirkeeda laba kareem waaye Aniza whitening iyo Aniza Gold ee kala leedahay soo Aniza Gold gaana aad fiican oo loogu talagalay dhanka nabraha wajigaana ku nadiifinayo waa hadii aan nabar qabtid I know inaan nabar zaid uga sheegatiin at the same time mida idin ka baraarujinaya waxay tahay markii aad rabtiin ina hada kareema saano kaleeta aad isku marsatiin wajigiina horta waa ina aad saliid hadu zaid leeyahay waa ina wajigaaga face wash ku dhaqdaa ama saabuun loogu talagalay wajiga jiro oo maxalli jiro aad ku dhaqdaa saabuun isla kuwa caagada ku jiro dhijina sida shaambada camal jiro kuwa waxa jiro face wash caadi kuwa waxa jiro saabuun caadi oo kuwa adeeg ah jiro soo markaas adi haysatid oo u fiican ama dhakhtarka ku soo qoro ama meelaha apple ka soo gado ama meel kasta laakiin muhiimadu waxa inaad mars isticmaal ina mars zaid u jeceshiin ma aqaan waxa ku aragteen ina iska dhaaftiin waa mars aad u xuntahay because wajigaaga mu fiicno hadii saliid leedahana qaleel ka dhigay hadii qaleel uu ahaana way kaasi qalajinaysaa waxaad ka faa'iideysaa weeraata ma jirto okay let us go to the point marka kareemkan iyo shaqooyinkiisa iyo wixiisa waxa ku dhahay wuxuu meesha laga keeno xasadna idin soo sheegay somaha
soo markii kareemka marka hadda markii labadan aad isku darsatid waxa waay pointigeena ugu hore waxa waay inuu wajigiina ku nadiifinayo nabrihi ka paapinayo rashes doolada wajiga rasheski ka paapinayo everything ka kala ingreenayo wajigaagina qurux kaaga dhigayo ayadoo eesas tahane maskiyada gabdhaha ay ku isticmaalaan ani semberi marka kareem marsanayo maski wax kama daba haro ayadana maskiyada wajida loo isticmaalo waa idin soo gali doona maalinta laser ay idin soo galiyay oo wajida oo white laserada oo maalmahan socdo wajiga la marsado ay idin soo galiyay waana ogtiina ka wada faa'iideen kuwii soo gadan rabeen waxaan leeyahay hadda ka sii tagtoonaada oo guduud ayuu leeyahay goona wajigaan ka gubaya kuleelu leeyahay kuleela ku jiro haddii aad hore u isticmaasho aragtan insha Allah commentiga la wadaag haddii aadan isticmaalin hadda ku sheegaya videoyaashii aan soo geliyay ee ugu talagalay inaan maskidas uga hadlayay halkaas ka soo daawo insha Allah wuu ku anfici doonaa soo marka labadan kareem marka wax kareem oo kaleeto oo whitening oo haba yaraatay aad ku darsan kartid malahan labadan oo isku isticmaalay nabar haduu waaweyn kugu yaal iyo haduu yar kugu yaal iyo haduu hadda soo socdabo waxa ku dhawaa isdeyseen ma fahanteen maskigaaga qasilkaaga hada rabto huruudaada everything waxaaga isku darso wajiga kaaliska argu ku noqona aan laga sheekay karno ma sha Allah tabaarakallah soo marka insha Allah hadii aad nagu cusub tahay oo video iyo markii ugu horeysay wax badan aniga faa'iideysa soo dhawo hadaad hore noola joogtana waa rabnaa wali hadii oo maxalli jiray waxa waaye hadda nagu soo biireysin family-keena soo mid noqonaysa waa jecelnaa inaan la joogtid mar walba waa rabnaa joogaaga waana kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan maalmo videoyaasheed ula socotaan saan iska sii fiican waxa rabaa insha Allah inay ila socotiin oo waxa ku dheemaan maalinta ka dambeeyso goolkeena gaarno idinkana kareemadeena insha Allah mar walba saana u soo geliyo maalin kasto inta ka gaaraa soo geliyo oo soo bilaa aadan iska caajisay haddana waa idin kala gelinaa insha Allah daawashada videogeena aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.